بلد وحاد كلنا هاي دولكاغايا جدوان بلد وحاد كلنا هاي دولكاغايا وانا لما هوراني هجري وحوقا وانا لما هوراني waxaan meeshan hambali ugu direynaa Soomaali weyn meel walba joogto ama meel walba ay ku sugan tahay waxa leenahay sanad guuro wacan Soomaali weyn hambaliyo ayaan leeyahay waa wax aad loogu farxo ama Soomaali weyn ama Soomaali walba qof walba ah oo aad ugu farxayo sababtoo tahay arintan waa arin aad loogu farxo 100% marka dad fara badan ayaa ka falceliya ama dad fara badan oo dhankaas iyo si u badan yihiin dad qurbaha joogo wadankooda ama dhulkooda hooyo jooga oo dad fara badan ayaa ka falceliyay waana arin aad loogu farxay ama Soomaalida 100% ay ku wada farxeen si u wada dabaaldegeen ama sida ay u wada farxeen aantida caaw farxadeeda lama soo koobi karo ama farxadan ku suganahay ama sida ugu faraxsanahay si Soomaalidu ugu faraxsan tahay ama si u dabaaldegayso ama dadka ku badan dhankaas iyo Muqdisho aad bay u dabaaldegeen Soomaalida meel walba joogan way ka dabaaldegeen qof walba soo xitaa qaar kamid ah Hargeysa dad fara badan oo laga arkayay meelaha qaar ku soo duubanayay ama meelaha qarsoon ku soo duubayay ama hambaliyada hawada u soo marinayay ama dhanka social media muujinaysa in ay ku wada faraxsan yihiin ama Soomaaliyo idil ama qof walba oo sheegto Soomaali inuu ku wada faraxsan yahay arintan ama dabaaldegaan ay aad ugu faraxsan yihiin waana wax aad loogu wada farxo ama Soomaaliyo idil faraxsan yihiin dad fara badan ayaa waxay ka soo duubeen muuqaalo sida u jeedo muuqaaladan quruxda badan ama kalibiyadan quruxda badan ay ka soo wada duubeen dad fara badan ama Soomaaliyo idil dhanka TikTok ha isticmaalaan ama dhanka social media dadka ku jira ama dhanka YouTube ha noqdaan ama dhan walba ha noqdaan qof walba waxay ka soo duubateen ama ka soo duubtay kalibiyo dadkii duubi kare ama duubi kar sida anigoo kala muuqaalo dheer ilaa muuqaalo fara badan way ka soo wada duubeen dadkii TikTok ku sugnaa muuqaalada kalibiyada yar ka soo duubi karna way ka soo wada duubeen kalibiyadooda ama si u dabaaldegayaan ama dabaaldegooda ama farxadooda ama wax walba ay ku saabsan waqtigaas ay ku wada faraxsan yihiin aad u la yaabka badan waxa kamid ah ama ay kamid noqotay ama taariikhda gashay iyadoo la gaarin 20ka iyo 6da iyadoo la gaarin ay dadka si dabaaldegeen ama dhalinyarada si u badan yihiin dabaaldeg ay si muujiyeen asxaabtooda ama dadkooda ama familkooda noqday si dabaaldegeen waxayna taas muujinaysaa in ay sugi laayihiin 26da ay tahay birida ee hadda muuqaalada soo duubayaan ama ay kalibada soo duubayaan ee week kor tahay ama maalmo ka hor ay sidan u dabaaldegayaan waana wax aad loogu farxo 100% sababtoo tahay in ay waqtigu la gaarin ama waqtigu ka dhiman yihiin maalmo qura ama saacado kooban ay si dabaaldegaan ay muujiyaan kalkacel iyo ku faraxsan farxad ee aad ay muujiyaan waa wax qof walba ama qof walba Soomaali ah oo ahayo ama qof walba Soomaali ah dhigiisa dhacankiisa aad ugu dabaaldegayo 100% mid taas dheer waxa waaye kii miig joogay iyo kii joogay magaalo waa isku si shucuurtooda ama farxadooda aad jinayaan waxayna ugu muujinayaan farxadooda ee waqtigan yihiin waqtigii ay qaateen xorriyadda Soomaaliya midaasna waa aad loogu farxo ama qof walba dhalinyaro ah ama qof walba oday waayeel wax walba ha noqotay ay ku wada farxayaan waana mid mudan in lagu farxo ama mar walba lagu dabaaldego sababtoo tahay waa waqti mudan in la dabaaldego ama farxad la muujiyo way ka duwan tahay maalmaha kale in badan farqi baa ugu dhaxeeya ama bilooyinka kale way naga duwan tahay bishan sababtoo tahay waa maalintii xorriyadii ay Soomaaliya ay qaadatay dad aad u fara badan waxay ka dabaaldegeen Burco Boorama magaalooyin fara badan oo aan la soo koobi karin ay ka dabaaldegeen sanaaga noqoto meelo fara badan ay ka dabaaldegeen waana taas muujinaysaa Soomaalinimadu in ay ku weyn tahay bishan ama maalintii xorriyadda ay aad ugu weyn tahay ama ay aad ugu faraxsan yihiin in ay u dabaaldegaan ama ay muujiyaan
shucuurtooda ama farxadooda. Soomaali weyn waxaan leenahay hambalyo kun jeer iyo kubnaan jeer hambalyo. fadlan anagu cusubtana waxaan ku leeyahay janaalkan subscribe ka saaro, muuqaalkan waad ka heshay iska video like garay aad mahadsantihiin.